رواينا أمهات عليو قد جي قبن قابضة شغلان وناكسن سوق قبن قابية وقت يكون بحيه جزاهم الله خيرا وحنا رباسيدا سوق لنا أمهات عليو سراكيش أمنية شغلان في عن إن قبصانتو سورة جلسي وحكلون رواينا أمهات عليو مامل كوتر أفريق أسكبوا بناي علي مركي جوه الرئيس أيطال كان سوق المركي هذا وما تنتظر هذه كنا أنت أسكدي وحأم لنا عاوة إنا كبر جني waxa meesha la isugu yimiday ujeedada laga leeyahay kulankan inaan aad uga dheegnay runtii aniga caawa waxaan ku jiraa waxay ka mid tahay habeenada ay ugu farax badan runtii sababtuna waxa waaye fahamka siyaasiga ee bulshada macna sameeya waa ogtiin dalka meesha uu ka yimiday dalkan dawladnimadiisa waxa asaas u ah wada hadal dib u heshiisiin isqancin meeshaas uu ka yimid qof walba oo naga mid ah wuxuu ka soo qaatay qayb maanta in halkaan la soo gaaro maanta inaan u baqno dawladnimadeennii oo isu soo baxno oo ra'yi isdhaafsano waxaan aaminsanahay inay tahay wax xaq ah oo loo baahan yahay taariikhduna ay qori doonto hadal la dhihi lahaay maanta hadal la dhihi lahaay caaw uma dhinna oo ku saabsan arrintaas أنا وحنا من سنة هاي مدحوين عبد الله فرماجة وحلو دي بأمد لمذيي له الشيسية دولة نمربتا اسجعل وحلا جربها ومدي اسجعل إنه دور شقبته ومدي اسجعل إنه دور شقبته سحرة أو حلالة أو حقة أو لقوق نحسين أو كقبته أرنتاس وحمانا ميا كجرة كمجران طيب dalkan 4 sano la soo dhaafay jid kasta waxa lagu gooyay dhagax dadkii siyaasiyiinta ahayna waxa la yiri ma dhaqaaqi kartiin dawladnimada macnaheedu taas ma aha ciidanka qaranka sida ciidanka qalabka sida ciidanka qaranka waa golna laakiin maxaa loo sameeyay ciidanka waxa loo sameeyay inay sugaan nabadgelyada dadka Soomaaliyeed waxa loo sameeyay inay cadawga Soomaaliyeed la diriraan waxa loo sameeyay sharafka Soomaaliyeed inay kor u qaadaan ina u qaadatid ma aha mushaar lagu siiyay iyo darajo lagu siiyay oo qaranka ah ku leedahay oo waajibkaaga ah ku gudanayso inuu qof kugu yeesho inuu nidaam kugu yeesho si uu dulmi kugu sameeyo qarankan qof meel uga aadan yahay mida macallina mida dhaqtara mida ardaya mida suuqa jooga mida dibadda wax ka keena ma loo baahan yahay mas'uul ma baahan kullu waa loo baahan yahay waxay qayb ka yihiin qarannimada qof kursiga ku fadhiya waxa loogu talagalay dadka inay u khidmeeyo u sahlo inay noloshooda aqoontooda sharafkooda kor u qaadaan dawladnimadu shalay waxay u duntay waxay ahayd dadka in lagu dulmiyo haddana waxay la liiqayso dadka lagu dulmiyo ma xaqaanaan u lahayn inaan dhahno war sidan waa khaldantay hal la joojiyo xaqaan u leenahay taas marka in laga dhigo dalaala abaabulay balaaya la soo wadaa magaaladan ugu yaraan ani hadda waxaan joogaa sanad wax ka badan wax dagaal aan ka shaqeyno ma aragteen ma jiraan aad iyo aad waxa ugu faraxsanahay dadka sharafta leh oo murashaxiinta iyo kuwa kale oo inta isu yimaadaan ay dhahaan war dalkeena see u badbaadsanaa aniga waxaan aaminsanahay inay tahay bisayl siyaasi ah oo loo baahnay madaxweynuhu inuu ka faa'iideysto dadkan hal qof oo madaxweynaha diiday ama diidan kuma jiro kulli waxa la ogol yahay dawladnimada waxa farta loogu fiiqayana waxaan wada leenahay gacanta ku haya warkada aan leenahay 4 sano waa la soo dhamaatay waxa la rabaa doorasho in la aado see lagu aadaa doorashada ma waxa lagu aadayaa guddi habeen madow la soo magacaabay oo ka kooban ciidamo taageerayaal iyo shaqaale sharcigan ogolayn
nidaamka doorashadaan ogolayn nidaamka cadaaladaan ogolayn doorasho waa la yaqaanaaye dhulka ha la dhigo qodobkaas waxaan rabaa halkaas inaan uga gudbo qodobka labaad waxa waaye ummaddan Soomaaliyeed maanta waxay higsanayso waxa waaye inay soo celiso karaamadeedii iyo sharafkeedii inay dhaqaalaha wax iska bedelaan oo horumar la taabo karo dalka uu ka dhaco maxaa horumar oo dadkan ka dhacay dukaamadu waa xirmeen baqaaradu waa xirmeen dadkii xoolaha haysta waa kala carareen maalin walbana waxaa la yidhaah dhaqaaluhu kor u socdaa dhaqaalaha kor u socda oo warqadaha ku qoran oo jeebka dadka aan lagu arkayn muxuu yahay meeqa shirkadooda kacday inta hadda nidaamkan uu jiray midda kale ani dhaqaalihii aan ma ahi laakiin inaan ka fahamsana haddii dakhliguna yaraado canshuurtana la kordhiyo dhaqdhaqaaqa ganacsigoodana oo yaraado kala xiran yahay amnina uusan jirin beera aysan wax ka soo go'aynin warshado aanaan lahayn ma ii sheegi kartaa dhaqaalaha siduu ku koraayo ma jirto qodobka saddexaad waxa waaye dal waxaa lagu hormariyaa waxbarasho dawladdu maxay ka qabatay waxbarashada taqriiban waxaa la yidhi meeshan waxaa ku taalla 50 jaamacadood ku taalla magaalada muqdisho gobolladana intaasoo jaamacadood ku taalla jaamacadda ummadda xilligaygiyaa la aasaasay oo la soo celiyay andhaho madaxweyne xasan sidii u xoojiyey waa joogtaa wax lagu soo kordhiyo dawladda ay leedahay ma jira iskuul ma aragteen lagu soo kordhiyo ma jirto iyadana waxa laga hadlaayo waxa waaye oo dawladdu u xil saaran tahay xaqiijinta himilooyinka ummadda Soomaaliyeed caafimaadkii maxaa soo kordha caafimaadka hal isbitaal cusub miyaa jiro oo la dhisay maalin walba waxaa la yidhaha horumaraa la sameeyey horumaraa la siiyey annaga waa ogolnaa horumarka waxaan rabna waaye aawa caafimaadka maxaa ku soo kordha hal isbitaaloo soo kordha ma jiro waa meeshiisii shaqaalayntaan aadaa marka haddana qodobka afraad qodobka shaqaalaynta qofaa la bixiyey qof kalaa la geliyey intaas waxaa ka sii daran see dadka lagu shaqaaleeyaa ma laydinkaga warrama waa waxilla wallahi gaar ahaan haweenka cabasho xoogganaa ka jirta hadday shaqo doontaan dhibaataa ka dhacda ogaada arrintaas arrin Soomaali oo dhan dhaawac ku waaye xafiisyada dawladda habka loola dhaqmo haweenka aad ay u xuntaa cabasho xoogganaa ka jirta haddaan munaafaqayno oon isku dayno inaan raali gelino dawladda oon been sheegno ilaahay subxaanahu wa tacaala naga cafi maayo waa inaan runta sheegnaa waa inaan khalad ka saxnaa akhlaaqdan raba halkaas inaan ka aado dadka Soomaaliyeed 4 sano la soo dhaafo akhlaaqdooda xagee aad beledkan waxa ka dhacay kulli waa la socotay dawladdu mas'uul waxay ka tahay akhlaaqda laftigeeda dadka in la gaajeeyo haddana la duleeyo wax fiican ma dadka waa dad muslimiina waa dad dhaqan leh waa dad muxaafidiina qof la arkaba karaamadiisa inuu dhowrsanaato u baahan yahay dawladdu arrintaas ayadana qayb kama qaadan si xun u isticmaasho dadkii waxaan rabaa inaan aado wada socodka ummadda Soomaaliyeed maxaa laga qabtay waa la qaybiyay ummadda hadda waa arkaysiin madaxweyne xasan sheekh markuu ka tagaayo iyo maanta bulshada Soomaaliyeed meesha isu joogto waa kaafi kala dheeri marka asagoo joogan annaga asaga waa eedeeno waxaan lahayn waxyaabo badan oo khalad laakiin hadda meel laga hadli kara ma joogo waxaa laga hadlaa hadda dagaal sokeeya laga hadlaa dagaal sokeeya in laga hadlo dambigeeda ayaa iskale dawladda iskale hadduu shala madaxweyne xasan sheekh oo wareeji lahaa iyadoo dagaal sokeeya laga hadlaayo madaxweynaha cudur daar lahayd laakiin maanta looguma cudur daarayo ummadda Soomaaliyeed in gurbaan colaad la isugu dhiibo ayadoo ujeedadu ay tahay in xukun la boobo xukun in la boobo lama ogola maxaa yeelay maanta haddaan ogolaano waxaan ka dhunnay jidka bilowgiisa marka maanta dawladda bilow tahay oo kabkab tahay waxaan rabnaa dimuqraadiyada inaan ku dhigno waxaan rabnaa inaan ku dhigno xukun wanaaga waxaan rabnaa inaan ku dhigno wada socodka ummadda Soomaaliyeed taasaana horumar ku gaari karnaa ummadaha horumaray taasay hore ku gaareen horumar ku gaareen arrinta cadaaladda
waxaan u maleeyahay in laga hadlo uma baahno magaalada muqdisho maanta haddii ilaahay rogo cadaalad darra loo rogo ogaada shaatigaas kayga maanta hadduu qof ugu qabsado maxkamaddu ay wax xukumay ogaada oo xaqiiqo ah garsoor ma jiro waa nasiib darro weyn 4 sano qofka in loo dhaafo oo la sugo daawadeedu waxa waaye dadka Soomaaliyeed inay laba mid doortaan qofka jooga inay doortaan iyo qof cusub inay doortaan madaxweynuhu fursad u sii dadka Soomaaliyeed ciday rabaan inay doortaan hadday ku doortaan qasaman wa cadaman oo ay kugu doortaan si xurriyada oo sharafa oo shafaafiyada waa ku taageerina laakiin kada doorashada sida ku wada madaxweynuhu asagoo og in talooyin socdaan oo shala ay afsi naga soo qaateen ururada bulshada maanta jadwal in la soo saado macnaheedu maxaa waay waxba igama gelin qaran kuma dhismo waxba igama gelin qaran wuxuu ku dhismaa wada fadhiisi isfaham sharci wada socodka ku dhismaa qarankan dadaa xoolo geliyay dadaa waqti geliyay dadaa dhiig geliyay nasiib wanaag 49 maalmood oo joogta madaxweyne noqotay alxamdulillah marka rabitaanka dadka Soomaaliyeed iyo horumarkooda loogama tanaasuli karo qof rabitaankiisa khaldan loogama tanaasuli karo waxaan rabaa marka inaan aado maxaa dhici karo suuragal ah haddii dawladdu ay wax garato oo waxaan dhulka ay soo dhigto oo ilaahay hanuuniyo oo tiraado waxaan laga wada hadlo jida la helay haddii jidkaas uu xirmo maxaa furan guriyana iska joognaa dawladdu waxay rabtaa samayso 4 sano kale ha joogto 4 kale ha ku darsato meesha ku dhamaanaysa aan wada sugno saas ma yeelna هي أوفي عنها تاس عدا أوفي عنها لما عدا أوفي عنها لما طيب كان كلام حون غنا مرك تاس وأصلا قرن معاك الوفرة وحاك الوفرة مظاهرات سيدا صاحبة الشيئين إن دتكو بدانك وصاب حنا دهان وحنا واديدن وحنا غنا يا مظاهراتكو وحلقة مار من وايي ودنتو خسبتي oo wax kale la sameey karaysan jirin ayuu noqonayaa ma jeclin anaka waa iswarsanaa inteena meesha fadhida ma jeclin khiyaarkayna maaha maxaa yeelay waxa ka dhala kara naqaana laakiin hadii la waayo dawladnimadii inay si sax ah u socoto maxaa la sameeynaa sida gabadhii walaashay ay sheegtay waa iska aamusaynaa waa iska sabraynaa say u socdaan waxayna muddo kadib haddana darbiga ku tagayaan gadaalan ka soo bilaabayna may hadda inaan qabanaa fiican هذا إلا قبطات يعني دولة وحلوه لسا حكمت يود جر حوق يبوب دولة لغمدس شعوب تأدونك جوكتنا واكل الدوان تان سوماليدو لنا عاسكم فيعنا أنك وحان ربنا إنه قفلا أو دبا وانا سومرتي dhulka aan dhigano aan ka wada hadalno sida aan isu dooranayno waqtiga la is dooranayo meelaha la isku dooranayo sida wax u dhacayaan ayadoo cad aan is doorano doorashadan maxaa la rabay waxa la rabay qof iyo cod inay noqoto qof iyo cod hadii la waayay haddana qola gaar ah maamulayso oo xafiisyada dawladda ka timiday sax ma ah marka waxa la rabaa مسؤولية لو ديبي مدحدا دولدا sida ay tahay inay u gutaan dadkan hadda waxay ku sabreen 4 sano wixii dhacay mid gobol jooga ma nabad gelin mid magaaladan joogana ma nabad gelin ninka gada jooga ciidan loogu geeyay iyo ninka jooga mataqaana maxaan ku yiraahdaa Puntland wax lagu abaabulay iyo ninka inta dad lacag la siiyay sharaftiisa la dhaawacay kulligood waa dhiban waxa loo safray waxay ahaaday maalinta doorashada xal la gaari doonaaye hal sugo maalinta doorashada haddana hadii la yiraahdo anay garabka ii saaran tahay
arrin la aqbali kara maaha waxaan rabaa miaale inaan soo qaato adduunka dadka ugu dhaqaalaha badnaa jiray ama ugu horumarsanaa jiray waxaa ka mid ahay ciraaq xilligii Saddam Hussein ciraaq hadda ugu dambeysay waxay ku dambeysay meesha aan wada ognahay ciraaq ma waxay u duntay lacag la'aan ciraaq ma waxay u duntay cilmi la'aan ciraaq ma waxay u duntay thaqaafa la'aan intaba uma dumin waxay u duntay dictatoriyad marka laba mid dooranaysa laba mid doorana maanta oo ay dhowdahay inaa qabato iyo biri markay xoogaysato xididaysato dadka iibsato inaa la dirirto labadaas ku furan mid doora marka adiga waxaan rabaa ummadaha marka la dhibo oo la dhibaateeyo oo la gaajaysiiyo oo la dulaysto naf waxay bidaan dictatoriyada isku dhirirayaan xaqana waa ka cararaan waa la sii dulaystaa taariikhdaana noo sheegaysa qofku wuxuu sharaf leeyahay intuu xor yahay oo fikirkiisa cabiri karo qofka jiritaankiisa wuxuu macno samaynayaa inuu xor yahay dowladdana waxaa laga raba koow damaanaqaadka xuquuqda dadka xuquuqda iyo xorriyaadkii ayaa la qaaday mar hore waa ku aamusnay maanta doorashadaa noogala darsad waa ka daba qaylinaynaa war bal doorashada aan dabada qabanno iyo dabada qabamayna isku haynaa hadda maxaa yeelay shalay cabdiraxmaan cabdishakuur marka la weeraraayo isaga dowladda wuxuu dhibaa wuxuu ka rabiyaa ani madaxweyne xasan iyo khalkan diyaarada nagala celish iyaga madaxweyne waxay u khilaafayaan hadda waxay joogtaa doorashada haddana waxaa lena doorashada madaxweynaha loo dhaafo saas maa dhahnaa dictatoriyada marka waxaan rabaa wax yarna uga sii laabto waxaa la dhahaa annaasu calaa diini muluki hadduu madaxweynaha uu naqdo nin dictatora gobolladana wax kale ka sugi mayno hadduu madaxweynaha sharciga ilaaliyo oo sharciga nagu hago oo sharciga ku adkaado gobolladana kaasaa gaaraya marka dimuquraadiyadda curdanka ee wakhtiga la soo wada geliyey ee rajada laga wada qabo nagama gasho ha loo daayo ha la yska dhaafo ma gasho arrintaas waxaan rabaa arrimaha dibadda inaan wax ka sheego soomaaliya waxaa ogtihiin waa dal jilcan oo hadda soo koraaya oo u baahan saaxiibo badan inuu samaysto calaaqaadkii arrimaha dibadda 4 sano oo lasoo dhaafay maxaa ku dhacday dowlado badan oo istaraatiiji noo ahaa oo weligaan aan calaaqaad la lahayn oo weligaan dhibaataan dhex martay waxaa la kari karay kuwa hadda saaxiibada ah oo dowladda la jooga iyo kuwaasba in la isku haayo oo dalka looga faa'iideeyo aa la kari karay maxaa yeelay kulligoodba xaqay kugu leeyihin adigana xaqa ku leedahay ma dhicintaas dowladaha dariska daris waxa waaye mahmaayo aan ficnayna sheega raalli ahaada waxaa la yidhaha nin iyo naag colna maaha heshiisna maaha dadku hadday daris yihiin colna maaha heshiisna maaha waa la isqabanaa laakiin dowladda maxaa laga rabaa haddii wax dhacaan inay xalliyaan waxay si fiican u xalliyaan ayadana ma jirto yaa ku dhibaatoonaya waxaa ku dhibaatoonaya dadka soomaaliyeed dadka xoolahoodu yaalliin kenya ama meel kale yaalliin ama raba inay maraan oo safar ugu baahan arrimahan dhacaya waxay ku yihiin dhibaato dowladduna waxay u xil saarantay inay ilaaliso masaalixda dadka inay ilaaliso ma dhahayno khilaaf ma imaan karo laakiin khilaaf hadduu yimaado wadiiqo saxa in lagu xalliyo ayaa loo baahan yahay waxaan rabaa inaan usoo gudbo ciidamada qalabka sida ciidamada qalabka sida waa kuwa noogu sharafta badanna waa kuwa loo diyaaray in annagana hurudno ayagana bannaanka ay taagnaadaan amnigeenna ay sugaan cadowga naga ilaaliyaan u dhintaan qarankan badbaadadiisa dartiisa
laakiin maxay ku dhisan yihiin ciidamadu waxay ku dhisan yihiin sharci waxayna xaqiijinayaan hadaf ama ujeedo la yaqaano goormaa dal wuxuu dhumaa marka ciidamada qalabka sida loo adeegsado waxaan sax ahayn oo sharci darro ah sida aan wada ognahay hay-adaha dowladda baarlamaan golo wasiiro iyo garsoorki soo saas ma ciidamadu howlgal ahaan waxay hoos tagaan garsoorka looma ogola ciidan intuu iska baxo qof soo xiro waa inuu maxkamaddu soo fasaxdaa sharciga waa inaan isbarnaa hadda oon ku shaqaynaa ciidan iska socdo oo ku dhahaya nabad sugidaan ka socdaa inaan ku xiraan rabaa waa sharci darro ciidanka sharcigu ku asaasan yahay sharciga ku shaqaynaa ciidanku waxyaabaha u dumana waxaa ka mid ah inuu noqdo ciidan aan sharciga ilaalinaynin ciidanka wiilasha walaalahay ama wiilashayda gabdhahayga walaalahay yaan laydin adeegsanin shacabka in laydinku cabiriyo aad iyo aad waxaan uga xunnahay dadkii mudaaharaadayay daraad ee la dilay waxaan ka xunnahay kuwa cawada naloo soo sheegay inay dhinteen waxaan ka xunnahay kuwa guryahooda ku hoyo waayey ee habeenii maalin la dul taagan yahay waxaan ka xunnahay kuwa hubka la isugu dhiibay isdilaaya ee daafta dhinaceeda kala jooga waxaan ka xunnahay kuwa inta la safriyey la geeyo meel nabadu ka jirto ee dad walaalo ah ahal ah boqolaal sano soo wada deganaa la dhexgaya inay fidneeyaan aadaan uga xunna hadday naqato marka ciidankii in lagu adoonsado mushaarka ilaan baahayaa jirta waad ognahay runtii waa arrin khasaare ah laakiin waxaa isweydiisaa ma waxaad rabtaa inaad ku noolaato inaad walaalkaad disho walaashaad disho qaxiso dulmi lagu adeegsado ilaa goormay ku dhammaanaysaa jidkaas qalloocan haddaad cagta saartid meelow ku dhammaha qof taqaana ma leh marka ka soo naqda sharciga ilaaliya dadkuna waa idiin siman yahay waxaan rabaa inaan ku gebagabeeyo guddiga la sheego maanta jadwalka inay soo saareen waa walaalaheen waa wiilasheennii waa gabdhaheennii colaad uma qabno laakiin waxaan rabnaa sharciga inay ilaaliyaan annaguna sharciga a ilaalino dadka loo xaqsooraayo annaka waaye mana ku qanacsanin waxaan nagu qanacsanayn qofnimadooda ma ahee qaabkay ku yimaadeen aan diidannahay oo waxaan diidannahay hay-adihii loo tababaray in inta laga soo qaado shaqo aan shaqadooda ahayn la soo geliyo si wax loogu boobo dad kale taasaan diidannahay marka waxaan leenaha raalli ahaada annaga garsoorkeenna dood badan aan ka qabnaa kuma qanacsanin arrinta doorashaduna arrin murashaxiin ma waa arrin qaran arrinta doorashadu arrin ma aha arrin murashaxiin ma aha arrin qaran waayo maxaa yeelay dal meesha uu ka toosayo ama uu ka qalloocanayo habka ismaamulka iyo hogaaminta waayo habka hoggaanka iyo ismaamulka meesha uu ka imaanayo waa doorashaduna waxay saameyn ku leedahay mustaqbalkeenna siyaasadeed mustaqbalkeenna dhaqaale mustaqbalkeenna jiritaankii ay ku leedahay marka ma ogolaa karno wiilal keliya ka fikiraya iyo gabdho inay mataqaana waa lay magacaabo keliya inay mustaqbalka ummadda soomaaliyeed leexiyaan oo ama dagaal u dhaco ama dictatoriyad u abuuranto ama xukun faasid oo u dhasho ama dhibaata u dhalato lama aqbali karo waxaan ku sii daraa qofkii inta lasoo tababaray shaqo loo soo diyaarshay ee raba shaqadiisa in inta laga qaado mid kale loo dhiibo dad ku dhibaateeyo qofkaasu waxaan u malaynaa dembi weyn uu ka gala naftiisa wuxuu ka gala dadkiisa waana khatar waa leys yaqaanaa dadka shaqaalaha ah dadka nabad sugidda u shaqeey jiray ama u shaqeeya dadka taageerayaasha ahaa jira madaxweynaha inaad taageertiin waxba kama qabno laakiin nooma naqan kartiin guddi dhexdhexaada ma idin dhahayno annagana taageerayaal noogu dara hebel iyo hebel noogu dara maya ma rabno annaga waxaan rabnaa dad dhexdhexaada Soomaaliya integrity leh la yaqaano in la geeyo meesha
وجبنا doorashada soo socota sida hadda loo wado Puntland iyo Jubbaland kama qayb galayaan Somaliland waxay anaga gaar ah u taaganahay cid kasta oo ka timaada maxaan ku iraahdaa goboladaas oo xataa la iraahdo waa la keensada sida lagu keenaba deegaanadoodii iyo maamuladoodii ma ogola dawladnimadana hadda iyadoo la ogol yahay wadi la nahay bal sida ay u shaqay karto waxaan rabaa horta in la fahamsiiyo taas waa iga su'aal mid kale waxa waaye malafka Somaliland waxa la wada hadalku waa istaagay dadka halkan jooga ee reer Somaliland waxaan aaminsanahay inay yihiin dad midnimada u taagan halkaan ay joogaan waa yimaadeen dhulkaan ay joogaan dhulkoodii waaye dhul Soomaaliyeed waa cid kale ma jirto laakiin marka la yiraahdo doorashada adika la idinka bilaaba sida annaka aan rabnaana idinka bilaabayna talana ma lihidina laguna yiraahdo midnimadii aan rabaa maxaad dareemi kartaa adiga arintaas arin sax ma aha arin la aqbali karana ma aha annaga walaalaheena waxaan rabnaa hadii loogu yaraado laba group way groupka fulinta ku jira iyo mataqaana gudoomiye Cabdi Xaash inta la isu geeyo oo wada fadhiistaan nidaamka ka heshiiyaan waxay ku heshiiyaan aan aqbalsana marka kuwa qooyi jirana ma hayno kuwaana waa qaybinayna arintaas wadaniyadna ma aha Soomaalina ma aha siyaasadna ma aha laga jooga iyadana waxaan rabaa inaan u laabto dawladnimadu waa process waxyaabahan oo kale inay dhacaan waa shay dabiici ah sida loo joogo in dawladnimada qof meel kale uu la aado ama group meel kale uu la aado wax dhaca oo lagu tala galo waa laakiin hab loo xaliyay leedahay habka loo xaliyay ma aha waa iska fariisanayna maalinkay daalana arkayna ma aha waxaa jira tilaabo lagama maarmaan ah in la sameeyo tilaabahaas waxay yihiin in banaanka loogu soo baxo oo la yiraahdo ma shaqaynayso arintan laydi kama qaadanin laydi kama yeelin qofku wuxuu ku karaamaysan yahay oo xurmo ku leeyahay sharciga intuu ku taagay sharci darro haday noqoto qof caadi oo noqonaya marka annaga waxaan rabnaa dad sharcigu agtooda ku weyn yahay inaan naqan oo sharciga ku kala dambeeya maxaa yeelay sharciga kii aan qorannay oo dawladnimadana asaaska u ahay waay dawladnimada haddaan rabnay inaan ilaalino waxaan ku khasbanahay sharciga inaan ilaalino madaxweynaha maxaan ku ixtiraameynaa sharcigaas inaan ixtiraam gudoomiyaha baarlamaanka maxaan u ixtiraameynaa sharcigaan ku ixtiraameynaa ra'iisul wasaaraha maxaan ku ixtiraameynaa sharcigaan ku ixtiraameynaa hadday sharciga iyagu jabiyaan ka warrama marka way ka leexdaan maxaa lagu ixtiraamaa wax lagu ixtiraamaya ma laha marka Soomaaliyeey maanta meel dib looga laabo kara ma joogno waxaan u baahannahay qarannimada inaan difaacno waxaan u baahannahay habka ugu wanaagsan oo ugu xigmada badan oo midnimadeena ku ilaashamayso inaan ku ilaalino waxaan rabaa inaan ku celiyo annaga colaad qofeedna naguma jirto colaad qabiil naguma jirto colaad kooxeedna naguma jirto qarankaan jecelnahay waqtiyaa naga soo galay asagaan rabnaa inaan badbaadino ma ogolaa karno annagoo joogna in mar kale dariiqa laga leexdo dhalinyarada Soomaaliyeed ee xilligan ku soo aaday waxaan ugu hambaliyaynayaa fahamka dawladnimada iyo firfircoonida iyo dadaalka runtii ay uga qayb qaadanayaan marka gacmaha isqabsada hore aan u soconna insha Allah waana guuleysanaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh
ku xirnow IBS Bank goob kasta iyo goor kasta adigoo isticmaalaya IBS Mobile Banking degso application-ka oo isticmaal adeega IBS Mobile Banking si aad u isticmaasho application-ka fadlan kala soo deg Google Play ama App Store-ka ku qoro IBS Mobile Banking kadibna guji install si aad ula soo degto app-ka haddaba ka isticmaal teleefankaaga adeegyada IBS Bank